dunidan waxa ka jira caadooyin iyo dhaqamo yaab leh oo la iska dhaxlay. magaalo ku taala dalka Kuuba ayaa sanad kasta waxa lagu qabtaa aaska nin ka mid ah dadka deegaanka oo isaga oo nool la aasayo. caadadan waxa laga bilaabay magaalada Santiago de Las Vegas waqti hore, waxaana dadka tuuladaasi arrintaa u sameeyaan iyagoo aaminsan in tuuladani ay barwaaqo noqonayso, balaayada sanadkaasna ay kaga nabadgelayso arrintaas. ninka sanadka isaga oo nool la aasayo ayaa isu arka mujaahid weyn oo badbaadiyey nolosha dadka magaaladiisa. waxaana ninkaas la aasayo isaga oo nool loo sameeyaa xaflad weyn oo damaashaad ah, waxaana subaxa hore wadooyinka la soo mariyaa dad koox-kooxa oo durbaano wata oo dad badan oo dabaaldegaya ay la socdaan. waxayna ciyaarta iyo durbaanka iyo ciyaaraha musiga ay wadaan ilaa iyo inta laga aasayo ninkaas. aaskan waxa ka soo qayb gala dadka magaalada oo dhan, waxaana la qabtaa sanad kasta bisha February. waxayna aaminsan yihiin dadkani inay tahay aaska rasmiga ah ee magaaladaas. dadka magaalada ayaa rumaysan in qofka isagoo jooga magaaladan ee aan aaska ka soo qaybgelin ay balaayo ku dhacayso. arrintani maaha sheeko qarniyo hore dhacday, waase mid hadda socota sanadkan aynu ku jirro ee 2019. daawadayaashayada ku xiran bartayada Theatre Bro, idinkuna fikirkiina ka soo dhiibta sidaad u aragtaan. waa Cabdirasaaq Jubba oo idin leh intaan dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.